qof walba waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan ka bacdi xalay baan tiimka is aragnay arrintan kalluumaysigana waxaan ku ahay interested aad bay igaga duwan tahay barnaamijyada kale sababtoo ah faa'iidada ay noogu jirta iyo sida aanan uga faa'iidaysanaynin baa macno badan ii samaynaysa sababtaas daraaddeed baan waxaan aad u soo dhaweynayaa hawshaan weliba aan jeclahay aad ugu faraxsanahay inay ka dhacdo maanta xarunta ku-meelgaadhka ee Jubbaland xaqiiqadu Soomaalidu xilligii uun dowladdii kacaanka ugu waqtiyadii dhexe abaartii dabadheer wixii ka dambeeyey dadkii la soo raray ee abaartii lagu soo raray loo sameeyey labadii mashruuc ee kalluumaysiga iyo beeraha yaa beys waxay u ahaayeen kalluumaysiga Soomaaliya iyo dadku xataa inay ogaadaan kalluunku macnaha uu samaynayo waxaad ogtihiin boqolkiiba 71 baa adduunka la yidhaha waa biyo 90 boqolkiiba waxay noqonaysaa berri inta dhul noqonaysa xawayaanka iyo waxa badda ku nool waxay intaasoo goor ka badan yihiin waxa berriga ku nool biqudrati jabbaar markaad dib u fiiriso hadda aad badda dhex gasho waxyaalaha ugu muhiimsan xoolaha alaabtaas kalluunka iyo waxa badda gudaheeda ku nool mararka qaarkood waad qariibsanaysaa malayga waxaa caadi u ah haddaad biyo macaan ku riddo oo dhimanayaa sooma markaad biyaha macaan hadda malayga caadiga badda ku nool biyo macaan dhex geliso malaygaasi ma noolaanayo wuu dhimanayaa laakiin waxaa iyadana sii mucjiso kale ah adoo badda ku dhex safraya marka uu roob idinku da'ayo malayga badda ku jira kulligii afku kor soo qaadaya biyaha xareedba afka u dhiganaya malaygaas kulligii afkuu taagayaa biyaha xareedda uu rabaa inuu u dhigto oo uu cabbayaa haddaad qaaddood dhexgelisana wuu dhimanayaa waxaa intaa sii raacaysa abaartu markay ka dhacdo berriga baddana way ka dhacaysaa soo maa geedaha badda hoostooda ku nool way qallalayaan waxaa la yidhaha xaafoodoo farabadaanoo cawsaba wuxuu imanayaa berriga waa wax isku wada xidhan markaa nolosha ama berrigii joog ama badda joog wax isku wada xidhan weeye hawshaan kalluumaysigu markaa waxaa asala in la fahmo wasiirkana aad baan ugu mahadcelinayay agaasimaha iyo wasiiraduba say u fahansan yihiin basic bay nolosha u tahay weliba dadkeennu waxaan odhan jiray waa waddanka labaad waa waddanka koowaad baan odhan jiray waagaa South Africa moogta maanaan aqoonsanayn waxaan odhan jiray Afrikada xorta ah waa waddanka koowaad ee ugu xeebta dheer saasaa iskuullada lagu dhigi jiray Soomaaliya markaa South Africa waa la haystay xilligaas xeebta ugu dheer intaa intee leeg baa laga faa'iidaystaa faa'iidada laga faa'iidaysta waxay noqotay in 50 markab 100 markab 500 oo markab kuwo nabad ilaalin baan ugu jirnaalo xeebahan ilaalinayna iyo kuwo kalluumaysi oo intay 10kii markabba hal markab uu sharci ka qaato warshado ku samaysto annaga intii lanoo iibgeeyo aan leenahay kalluun baa Thailand laga keenay oo maydhan in Thailand baa ku taaliya maydhan in China ku taaliya Japan baa ku yaaliya French baa ku yaala ay noqoto waxa annaga ay kalluunkanagi intii la soo saaro ay qaabka u noqoto maxaa keenaya aqoon la'aanta noo haysa iyo saanaan uga faa'iidaysanaynin ba waxay sababaysaa dadkii kalena hadda waad aragtay dadku markii hadda daadan annaga aan gaadhay la joogo dhakhtar waliba wuxuu ku leeyahay hilibka guduudan iska ilaali annaguna cadi caalaan maqli jiray waa inaad hilibkii iska dayso oo maxaan sameeyaa kalluunka cun malayga iyo digaaga dadka allergic bay ku wada qabaan inta badan kalluunkii la cunaya away marka xagee u yaalaaba ma wahaynaba qorshihiisiina laguma jiro waxa aan ka shaqaynaynana macno kale u samaynayo waxaan aad u soo jeedinayaa dowladda Soomaaliya heerarkeeda kala duwan marka la isku daro hawshaan kalluumaysiga iyo faa'iidada badda ku jirta in siyaasadda wax laga bedelo
oo wasiir idinkuna aad u noqotaan dadkii hadda keeni lahaa bal initiative cusub oo barnaamijkan kalluumaysiga iyo khayraadkan badda ku jira sidii looga faa'iideysan lahaa waa kow dadkeena inaan barno wacyigelin loo sameeyo orientation badan la sameeyo suuqyada maalmaha qaarkood la xanibo oo la yiraahdo kalluun waxaan laguma qali karo lama gadi karo iyo midda labaad oo sidii loo soo saari lahaa annagu aanu dhoofin lahayn oo kalluunka annaga aan leenahay xeebteeda laga saarayo ama tuunaha noqdo ama ka kala ha noqdo bal loogu dhignaa meedhan in Soomaaliya oo intaan hadda leysama bixinayna qolo siinayna annaga la soo tasdiir la soo dhoofinayo kaanagi badayda lagu gasacadaynay laas qoray kaliya waagi hore lahayn Soomaaliya meel kale ma jirto oo tuunada base waa meesha ugu badan ee ku kala wareegaan ay noqoto marka inaan anagu warshada sameeyno warshada aan sameeyno warshada waxa ka sii muhiimsan inaan cold storage-yadii intaan sameeyno marka oo qaboojintii loo sameeyo haddii aan sidaa u facilitate garayno marka kadibna anagu aan dhoofino isagoo sidiisa u taagtaagan xataa mashaariicda dib loogu noqdo in fact wasiirka xalay uu sheegay mashaariic dhowr ah barnaamijkaas oo jira mashruuc kasta oo la leeyahay wax baan idinku qabanayna iyo tababar baan idinku sameynayna iyo dhowr iyo 10 milyan baan idin haynaa hal laga bedelo siyaasadda hal loo bedelo in basic dhulka Soomaaliya gudaheeda wixii lagu sameyn lahaa ee kalluunka naga faraha badan magaciisa ku soo noqon lahaa wasiir barnaamijka shaqadeeda hala galo labada heer dawladeedna waxaan aad ugu talin lahaa waliba inaan shirarkan lagu soo qaado dayacaad baa ka jirta arrinta kalluumaysiga aan dib u saxno loogu noqdo waxaan rajeynayaa shirkiinan markaa bal jadwalkii hore iyo qorshihii hore ku socoteen inaad wax ka bedeshaan policy aad soo gudbisaan oo ku saabsan war waan khasaaray oo malayganagii waa la gurtaa oo magac kaloo ku baxaa oo isagoo magac kale wataa lanoo keenaayo annaga maxaa dan loogu jirtaa oo cidda waxna taraysa ayna tarto waxayna taraysaa noqoto wax annaga base kanaga ka iman kara oo dadka u gudbin karo oo magac annaga lagu qaadi karo inuu noqdo wax ka soo baxa tala la imaada annagu markaa labada heer dawladeed iyo shirka ACC xataa aan ku soo qaadano wixii lagaga hadlaa taasaan aad u soo dhaweynaya waxaan rajeynayaa wasiir baa idin soo dhaweeyay marti ani iyo wasiirka u tiini soo idin soo dhaweeyay ku soo dhaweeyay ma Ismaaciil Kaafisa la yiraahdaa dadka way wada qaadaa waagi hore waxaa la oran jiray Ismaaciil iyo Kista laakiin hadda Kista laga daayay hadda howlkan golaha wasiirada federaalka xataa shir bay ku qabsadeen hadii 2017 midkood baan malaynay marka soo dhawaada wasiir aad baan u mahadsantiin hawsha waxaan rabaa in waxa ka soo baxa uu noqdo wax berri mid dhali karay haddaan aan dadka khasab kalluunka ku cunsiin oo caafimaadkiisa aan horta isaga fiirin oo mashaariic aan raadin waaweyn hal looga shaqeeyo marka shirku waa idin furan yahay aad baad u mahadsantiin waan idin soo dhaweynaynaa khayr baan idin jeedin